waayay arrinkii Ethiopia iyo Masar iyo meeshii biyo xireenka la isku haystay ilaahay amarkiis dhaxda ka dhex fadhinaa dalaq anagaan isku keen yaa xasuusto mar dowladda federaalka ah ee Soomaaliya saxiix iskala ordaysi dal Masar la aadna heshiis bilateral military labada dal in midba midka kale qadiyadiisa uu garab istaago Ethiopiana tii oo kala la soo sameeyay fiiriya sheekadan xiisa leedahay Ethiopia iyo Masar heshiisyada adag galnay waa similar Ethiopia iyo Soomaaliya Ankara waxay ku heshiiyeen in dalba dalka kale qadiyadiisa uusan ku xadgudbi karin ama afka ha noqdo ama adin ha noqdo Masarne midaas oo kale ayaa la galnay ciqaabteedii maanta na haysataa hadaa Soomaalina idin sharax marka Ethiopia waxay soo gabagabaysay barnaamijkii biyo xirida ee GERD loo yaqaan Soomaa isla markii Abiy Ahmed Farxad awgeed wuxuu bilaabay inuu daabaco warqadii invitation Hassan Sheikh Mohamud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya warqadii invitation-ka Avila Soomaaliya u dhex taalo jawaabteeda lagu sugayo waxa loo qabtay 3 maalin kaligiis ma madaxda Afrika oo dhan aa loo wada diray ku xitaa Asia iyo ku BRICS iyo kulli waa loo diray Ethiopia u dirtay waxa la yiri si degdeg ah invitation-ka uga soo jawaaba si aan u galno abaabulka diyaaradda lagu soo diri lahaa xilliga imaan lahayd ilaan waa hol adag marka September maadaama ay tahay qofka madaxweynaha ah waa inuu degdeg jawaabtii ka soo bixiyo sidaas awgeed Xasan Sheekh Caaw Qaahir uu joogaa markuu ku laabto magaalada Muqdisho waxa sugayso inuu jawaab rasmi ah ka bixiyo taas xaqii wixii invitation-ka ku dhahay jawaab rasmi ah inuu ka bixiyo caawa hal mid indhaha ku haya aniga caawda ima taalo sababta waxay tahay Masar Abiy Ahmed markuu ku mashquulsan yahay invitation-ka uu diraayo ninka la yiraahdo al-Sisi Masar asagana invitation kaloo diraya tii Xasan Sheekh u dir oo kale oo degdeg tahay Xasan Sheekh dadka ugu fudud degdeg uu ku keensaday Qaahiro ayuu dhex joogaa ninka odayga caaw marka waxaa dhowr sugtaan ee aad u fiirisaan caawa haddaysan caawa dhicin berri markii madaxda ay kulmaan waxaa protocolku uu yahay in madaxda ay shir jiraa'id wada qabtaan side by side ayagoo isgarab taagan xashaqo inta taagan iyo kii kale al-Sisi oo inta taagan al-Sisi meeshaanuu rabaa in rigooro uu ka dhaliyo Xasan al-Sisi markuu hadlaayo shir jiraa'id la qabto wuxuu soo hadal qaadi doonaa Ethiopia iyo barnaamijkan hadda ay soo gabagabeeyeen ee GERD ayuu soo hadal qaadi doonaa wuu cambaareen doonaa wuxuuna kala dul dhici doonaa Ethiopia cambaareen Xasan Sheekh wuu garab taagnaan doonaa bahashaas aad يعني ان عاو هدي عاو شركه جرايد uu yahay kala idin sheega ha ka hurdina haday bari tahay waaba ka soo jiidaanba markuu al-Sisi cambaareen kala dul dhaco Abiy Ahmed sheekadii 13 sano waa diiday wada hadal sheekadan waa soo gabagabeysay waxa ku xadgudubto dhihi doonaa Masar al-Sisi qadiida Masar ku soo xadgudubtay Abiy Ahmed markuu saas leeyahay Xasan Sheekh Banooni loo baasa wuxuu ka dhihi doonaa Xasan Sheekh arrinkaas kulley madaxweyne dabada ma aha wuxuu dhihi doonaa arrinkan nabad lagu dhameeyaa inta fiicneed laakiin Abiy Ahmed sidoo u fasiran doonaa in labada madax isgarab taagan madaxweyne ka mid ah uu Ethiopia barnaamij 4 sano iyo $4 billion ay soo gelisay yani Abiy Ahmed wuxuu u fasiran doonaa bartkolka idin sheega Abiy Ahmed shirkaas jiraa'id labada madaxweyne ay qaban doonaan oo madaxweyne kamid ah uu ku cambaareen doono arrinkaas biixireenka Abiy Ahmed wuxuu u fasiran doonaa shirkaas jiraa'id inuu yahay mid lid ku ah qadiyada iyo horumarka Ethiopia meeshaas waxa ka dhex muuqdo Xasan Sheekh ka dhex muuqdo taas oo dhaawaceyso xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia taas meegaasa hadiise isla shirka jiraa'id laga yaabo ani ina dhacis u maleynaa Xasan Sheekh uu dhaho Ethiopia oo ku qaldaneed in barnaamijkaas ay dhistaan waa marka waxa waaye safety galka waa laga baxay waay taas aniga dhow sugaya shirkan jiraa'id waaba sugi lahaaba in labada madaxweyne al-Sisi iyo Xasan Sheekh ay wada qabtaan qaybtaas GERD-ka markuu ka hadlaayo ninka la yiraahdo al-Sisi iyo Xasan Sheekh wajigiisa iyo expression-ka iyo wuxuu dhihi doona intaas caawa deesan dhicin bari waa dhicisa ka suga taas waa taas Xasan dhibaato weyn haysato markuu dalka magaalada Muqdisho Villa Soomaaliya dib ugu laabtay invitation-kii Abiy Ahmed sugayo miiska saaran
hadduu ka jawaabo uu dhaho waa imaanayaa oo waa kasoo qaybgalayaa September furitaanka xafladda furitaanka barnaamijka GERD-ka babababab waa imaanayaa waa taaganahay abiy saaxiibkeeda tahay kaala arag qosolka dhoola cadeynta taasna masar waxay u fasiran doontaa in xasan sheekh uu ku xadgudbay qadiyadda iyo midnimada dalka masar inuu ku xadgudbay ayay masar u fasiran doontaa sidoo kale suudaan ayadana waxay u fasiran doontaa in xasan sheekh qadiyadda suudaan maadaama suudaan ay ayadana diidan tahay biileexsigan etoobiya ee wado marka waxaan noqonay soomaalidana waxaan noqonay gabdhaha qaar laba nin isku dulshukaansadaan mogtahay gabdhaha intooda badan saasay sameeyaan oo ay ogyihiin laba wiil laisku dulshukaansadaa waa la kala qarayaano laakiin maalinkii liis ogaado magaalada iskaga guurtaa marka dhibayo dhibkii aana haysto tallaabada inta u qaadnaba kii kale xanaaqayo kan tallaabadan kan u qaadnana kii kale xanaaqayo abiy axmed kasoo ag muuqo al-sisi waa kana wuu xanaaqa message noo soo diraa kii kale maxaa la dhihi jiray al-sisi kasoo ag muuqo abiy axmed sida gabaru naagu qabo oo u dhaxna oo kale ayuu asagana na soo cambaareena heshiiska abiy axmed waxay ila tahay horta haddii masar iyo soomaaliya dhinac uga soo wada jeestaan barnaamijkan GERD-ka abiy axmed wuxuu ka bixi doonaa heshiiskii ankara ee turkiga u dhexdhexaadinayay wuxuuna cogsan doonaa qodobka ah in soomaaliya ay ka baxday heshiiska qadiyad etoobiyana ay kusoo xadgudubnay sheekooyin noocaas oo kale markaasuu baddii iyo maamul goboleedii inuu la heshiiyo bilaabi doonaa marka annagaa kadeedkan dhibkaan isgelinay waagii waxaan iska saxiixayna iska ordaynay oo kaale walaahi bilaga saaxiibkiya sawir ma ogeen in maalmo noocan oo kale oo dhib badan ay imaan doonaan soomaaliya ilaaha badbaadi waa dhulkeenii waxaa naga maqan madax qadiyadda ku adag oo dhulkeenii jecel oo Somalia first horta Somalia first dad inay noo imaadaan Somalia yani mas-uul Somalia lambar 1 ka dhigaayo oo horumarinayo dalkeena ma joogaan saas aan aaminsanahay marka almuhim ciladaas aan haysato labadan dhurwaagan iyo libaaxana dhaxda dalaq ka dhex dhahnay wax soo kordho bal arki doonaa